waa kuma geysiga ee ka baqayso Israa'iil ka dayrinayso sii deyntiisa kuna tilmaameen inuu yahay mid ka daran Yaxya Sinwar iyo Maxamed Dayf maxay tahay shaqadiisu qorshe noocee ayuu fuliyay muuqaalkeena maanta waxaan ku qaadaa dhigi doonaa ama ku dul istaagi doonaa mid ka mid ah geesiyaashii Xamaas halay ku qaatay nolosha xabsiyada Israa'iil lehna khibrad sare injineer qoraa iyo mid khabiir ku ah samaynta qaraxyada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. magacaygu waa Aadam halkanina waa Cornell Media kusoo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. Abdullah Ghalib Abdullah Al-Jamal Al-Barquthi wuxuu ku dhashay wadanka Kuwait sanadka markuu ahaa 1972 wuxuuna ka soo jeedaa qoys caan ah oo reer Falastiin ah loona yaqaan qoyska Al-Barquthi. Wuxuu u guuray caasimadda Urdun ee wadanka Cumaan halkaas oo uu kula kulmay qoys Falastiiniyiin ah oo la ildaran qax iyo barakac sababo la xiriira awgeed gumaysiga Israa'iil. Dhibaatadan uu arkay ayaa waxay ku abuurtay rabitaan xooggan oo uu ku doonayay inuu kaga arguto gumaysiga waxbarashadiisii iyo tababar qaadashadiisii. Abdullah Al-Barquthi wuxuu waxbarashadiisii hoose iyo midii saraba ku qaatay wadanka Kuwait balse dagaalkii kacaanka kadib wuxuu u guuray Urdun halkaas oo uu ku qaatay shahaadadiisii dugsiga sare ee farsamada gacanta sanadkii 1990. kadib wuxuu u safray koonfurta Korea halkaas oo uu si aad ah ugu bartay luqadooda wuxuuna muddo 3 sano ah ka baranayay injineeriyada elektarooniga. Intii uu halka joogay wuxuu bartay farsamooyinka samaynta qaraxyada iyo sidoo kale weerarada elektarooniga ah hacking iyo jebinta nidaamyada isgaarsiinta. Sanadkii 2022 isagoo xabsiga ku jira ayuu qaatay shahaadada masterka ah wuxuuna ka qaatay jaamacadda ku taal Qudus isagoo ku takhasusay daraasaadka gobolada gaar ahaan daraasaadka Israa'iil. halgankiisi Barquthi wuxuu halgankiisa bilaabay isagoo da'yar ah isagoo xilligii Kuwait uu joogay ku biiray kooxo ka soo horjeeday joogitaanka ciidamada shisheeye. Arrintan awgeed wuxuu muddo bil ah ku xirnaa xabsiyada Kuwait ka hor inta aan laga musaafirin loona dirin Urdun. Markii uu koonfurta Korea ka soo noqday wuxuu isku dayay inuu galo Falastiin balse uu ku guuldaraystay oo maysuun u suurtoobin. Sanadkii 1998 wuxuu shaqo ka helay shirkad ka shaqeysa Falastiin taas oo fursad u siisay inuu xiriir la yeesho xubno ka tirsan Xamaas. Wuxuu u bandhigay xirfadiisa ku aadan dhanka qaraxyada taas oo keentay inuu noqdo injineerkii ugu sarreeyay weerarada ka dhanka Israa'iil xilligii intifaadii labaad ee sanadkii 2000. sanadkii 2001 wuxuu fuliyay weerar ka dhacay maqaayad ku taal Tel Aviv kaas oo lagu dilay 15 Israa'iiliyiin ah halka ay dhaawacmeen 10 kale. taasi waxay keentay in la xiro muddo bil ah balse markii la sii daayay wuxuu sii waday howlgaladiisii taas oo keentay in Israa'iil ku eedeyso dilka 66 Israa'iiliyiin ah iyo dhaawac in ka badan 500 oo kale xabsiga Israa'iil. Barquthi waxaa la xiray 5tii bishii Maarso sanadkii 2003 waliba isagoo gabadhiisa yar takhtar u wada magaalada Albira. wuxuu la kulmay xabsi adag ee jirdil muddo 3 bilood ah wuxuuna ugu dambeyn helay xukun ah 67 xabsi daa'in ah taas oo ah xukunka ugu dheer taariikhda. muddo 10 sano ah wuxuu xabsiga ku jiray keligiis isagoo la kulmay cadaadis nafsiyeed iyo mid jireed. waxaa lagu sameeyay jirdil hanjabaado iyo dhibaatooyin kala duwan waxaana la xusay in mararka qaar la gelin jiray qol uu ku jiro qof maskaxda ka xanuunsan si loogu cadaadiyo. isaga oo xabsiga ku jira wuxuu galay halganno kale sida cunto ka soomida ilaa laga bedelo xaaladiisa xabsiga. intii uu xabsiga ku jiray wuxuu awood u yeeshay inuu qoro buugag dhowr ah oo muhiim ah shaqooyinka iyo waxqabadka shaqooyinkii uu qabtay. Barquthi wuxuu ka soo shaqeeyay injineer dayactirka qalabka shirkado Urdun ah oo ka shaqeeya Falastiin sanadkii 1997. sidoo kale wuxuu ahaa barnaamijye ama programa ka shaqeeya shirkado ka howlgala Qudus sanadkii 1998. wuxuu sidoo kale ahaa hogaamiyaha garabka militari ee Xamaas ee daanta galbeed isagoo bedelay Yaxya Ciyaash. wuxuu si qarsoodi ah uga shaqayn jiray magaalada Nablus isagoo ka sameynaya walxaha qarxa iyo sunta. wuxuu dhisay warshad yar oo qarsoodi ah oo lagu farsameynayay walxaha qarxa. wuxuu qorsheeyay tiro badan oo ah weeraro ka dhan ah Israa'iil intii u dhaxaysay 2000 ilaa 2003.
buugagtiisa uu qoray waxaa ka mid ah intuu xabsiga ku jiray wuxuu qoray buugag dhowr ah oo aad loo akhriyo kuwaas oo ay ka mid yihiin muhandasu cala الطريق وهو كتاب مؤثر عبارة عن رسالة بعثها الكاتب لطفلته ليعرفها على نفسه وكتاب uu qoray gabadhiisa si uu uga sheekeeyo naftiisa walibana isagoo ku sheegayo halgankii iyo dagaaladii uu soo galay xoreynta Falastiin iyo iska caabinta gumeystaha الشهيد الحي شهيد كالنور فلسطين العاشقة والمعشوق المقصلة وجواسيس شابك معتوه في دائرة العقلاء إعدام ميت الماجد ذكريات بلا حبر بوصلة المقاومة المقدسي وشياطين الهيكل المزعوم الميزان جهاد الدعوة ودعوة المجاهدين وهو كتاب موجه للدعاة والوعاظ يبين لهم أهمية التركيز على الجهاد وأنهم من أوليات أصحاب الدعوة إلى الله إنجنير كوددا لبو شهيد كالنور بوك هادلايا ويا أرغنمديسا سدح فلسطينتا لجعليهاي شاكو كسابسن فلسطين أفر مدحدا iyo basaasinta shabakada sheeko ka hadlaysa basaasinta Israa'iil afar waaliye wareersan sheeko ka hadlaysa halganka ruuxi ah ee qofka lix dilid qof dhintay buug uu uga hadlayo fikradaha halganka toddobo mujaahidada xasuus aan lahayn qalin iyo warqad sheeko ka sheekeynaysa xasuus muruga leh sideed hagaha jihada sagaal maqdisi iyo shaytaamada haykalka been abuurka ah toban miisaanka dacwada ee jihada buug baraya culimada muhiimada jihaadka barquuthi wuxuu wali ku jiraa xabsiyada Israa'iil wuxuuna aaminsan yahay inuu halgankiisu guuleysan doono mustaqbalka intaas ayaynu ku soo gunaanadeynaa muuqaalkeena maanta haddii uu muuqaalku ku qanciyay ha ka ilaawin like-ta lana wadaag asxaabtaada nagu soo biir oo ka mid noqo bahweynta nagu xiran mahadsanidin